dhagaystayaal sida sheekadii qayb libaax ee aan hadda ka hor halkan idinkaga soo tabinay Soomaalida dhexdeeda sheeka xiriirooyinka caanka ku ah waxaa ka mid ah sheekada Araweelo taasoo lagu andacoodo kol inay dhulka Soomaalida meelo ka mid ah ay boqorad ka ahayd inkastoo aan taa cidina cadayn karin haddana waxaad moodaa bulshada qayb weyn oo ka tirsan jiritaankeeda inay rumaysan tahay kolka haddii ay jirtayna waa boqorad aan kutubta taariikhda lagu xusin oo wax qorayaashii hore ay iska iloobeen haddii aysan jirinna waa qof dadkii sheekooyinkeeda maleegay ay u saariyeen dabeecado la yaab laho kalitalasnimo iyo naxariis darraba ay saldhig u yihiin gobollada Soomaalida intooda badan waa laga yaqaan waxaase xarunta boqortooyadeedii lagu sheegaa degmada Ceelaayo oo waqooyi bari Soomaaliya ka mid ah halkaasoo xajuurkeedii inuu ku yaalna la isugu sheekeeyo yeelkeeda sida la wariyo hab afgambi u eg ayay Araweelo talada ku qabsatay waxay ahayd qof dumarka ka adag oo anshiga ragga leh waxna aan u ogeyn dabadeed si ay laboodka xukunka uga la wareegto ayay maalmaha ka mid ah waxay dumarkii oo idil ka dhaadhicisay dhowr cisho hawlaha guriga iyo carruurtaba inay ragga faraha uga qaadaan way ka yeeleen dabadeedna hawlihii lagu cileeyay intii uu raggu ku mashquulsanaa Araweelana ciidan ay haweenkii ka samaysay ayay hubkoodii ku urursanaysay sida la yidhi korkay sameeyay warmala ka wada dhigtayna way qabqabatay markay taladii u gacan gashayna waxay ku mashquulshay kabihii ay weligeed ku haysan lahayd go'aan yaab leh ayay markiiba soo saartay waxay tidhi rag oo idil waa in la dhufaanaa kii diidana waa in la dilaa amarkaa kolkii la fuliyeyna waxaa geyigii isugu soo haray haween talada haya iyo rag wada dhufaanan oo ay adeegsadaan inay waxba ka dhigdhiyaanna aan laga idi karayn haddaba inkastoo wax waliba sidii ay qorshaysay u dhaceen haddana waa dambe ayaa waxaa Araweelo ku soo kordhay walwal hor leh oo ay ka qabto rag aan la dhufaanin oo qoorihii inay weli geyiga ku nool yihiin kuwaasoo xukunkeeda barri ka maalin halis ku noqon kara sidee bay kolka taa ku hubin kartaa ayay isweydiisay waxay soo rogtay markii ay dabin joogtaba dadka ay u taliso xujooyin adag inay soo dhex dhigto kuwaasoo haddii ay muddo gaaban ku furdaamin waayaan dil ku mudan jiray malaha waxay islahayd xujooyinka adag mid raga waxa joogtee mid la dhufaanay ma furi karo halkan baa waxaa sheekada kaga soo biira dil iyo dhufaanidba nin keligii Araweelo ka badbaaday min garaad badan oo ku guuleystay xiniyihiisa oo nabad qaba inuu geyigana wax kaga noolaado waxa la oran jiray oday biiqe isaga ayaana dadka meel ugu jiray oo si aan loo layn xujooyinkii inkaara ee Araweelo u furfuri jiray haddaba waxaa la yidhi maalin bay Araweelo waxay dadkii ku xujaysay inay u keenaan dhig qaansa roobaad dhacegoo ay aqal ku dhisato waxa ay yeelaan markay garan waayeenna waxay la tashi ugu tageen oday biiqa oo markaa ku yidhi u taga oo weydiista udub la-eg oo dhigta lagu celiyo bal horta inay iyadu keento markaas bay walaacday nabadgelyadeedii ayay u cabsatay waxay dareentay geyiga rag qoorihii inuu weli ku dhaqan yahay kolkaas bay maalin kale dadkii waxay ku xujaysay harag labada dacoodba dhawar ku leh inay u keenaan taana wax ay ka yeelaan markay garan waayeen bay oday biiqa sidoodii ula ciirsadeen isna wuu u furay markuu kula taliyey inay dheg dameer u geeyaan taas markay ula tageenna waxaa Araweelo ku sii badatay baqrintii ay weligeedba ka qabtay rag ah oo u babacdhigi karaa dhulka inay weli joogaan aan la wada dhufaanayna si kastaba ha ahaatee sheekooyinka Araweelo loo saariyey laba siyood ayaa loo fasili karaa haddii ay yihiin kuwa raggu maleegay waxay u eg tahay inay uga jeedeen inay ku maleeyaan haddiiba uu dumarku geyiga xukumi lahaa saxariirta ay iyaga badi lahaayeen iyo guud ahaan sida foosha xun ee ay waxyeeli lahaayeen taasna waxaan ka garan karaynaa afartanada qarnigii 20aad gabay uu tiriyey gabayaagii weynaaye la odhan jiray Faarax Xuseen Sharmaarke oo ahaa maansayahan gobolka Gado aad looga yaqiin wuxuu Faarax gabaygiisan ku xusayaa sheekooyinkii boqoradda intoodii badnayd gaar ahaan oday biiqa tabtii uu iyada kaga badbaaday xujooyinkeedii qaar ka mid ah iyo gadaalkii sidii loo dilay wuxuu ugu horraysiinayaa xujadii ku saabsanayd ratigii caddaysinka ahaa ee haddana raraa wuxuu kaloo si qorxoon uu gabayga ugu soo bandhigayaa falaadyadeedii la yaabka lahaa kii ugu sii yaabka badnaa gabadhii ay dhashay markay labada nin u wada dhistay ee midna ay ku amartay dharaartii inta qodaxdu cirka ku taal oo keliya inuu u imaan karo kii kalena ay u sheegtay habeenkii oo qura inuu gabadha u fasaxan yahay si farsaxnimadu ku badan tahay ayuu Faarax inoogu sawirayaa qorshaha siloon
dhibaatadii ka timid kolkii ay gabadhii wiil dhashay ee labadii nin ay isku qabsadeen iyo sidii gartoodii loo noqay. markii uu Faarax Xuseen gabaygan arriweelo tirinayay wuxuu u dan lahaa baa la yidhi odayo isaga ay qaraabo ahaayeen dumar u dhaxay oo uu gabayaagu u arkayay tabtii arriweelo inay u dhaqmayeen. wuxuu yidhi arriweelo dumar oo dhan bay u aqli roonayde iyaduna awowgeed la naar ma arrin fiicnayne goortii ugaas laga dhiguu ololay suurkii. nimankii amiirka u xukumay qoorihii ebele waxay tidhi haddaan laga idlayn way ajalayaane aqli naaqusyadii boqraday ooyo dabadeed. arrinkeeda waa lagu lumaa oori caana leh ee awr wada caddaysina asaan agabkii loo waayin yay tidhi caduuriyo ilgaal ku amriyoo saara. wuxuu yidhi abwaankii ku jiray aqalka reertiisa intaad marisaan ratiga dhiiqadii adabda la ordo iyadoo engegan aayar khabar siiya. gabadhii itaal badan rag waa wada indheeyaaye inanteedii toosnayd hadduu wada ilaalaystay nin waliba anaa eedda kaa iibin buu yidhi. mid bay tidhi alleylkii la joog waana aradaaye oo yaanan kuu iman hadduu oogu soo kaco ee ha indhayn dharaartii wad baa jooga aqalkaas. mid bay tidhi shamsada eego oo waaga soo orore kana aarso maantii aday oori kuu tahaye oo agagarkeedaa ka durug aaska oo dumay. isma oga raggana naagtu waa u wada adeegtaaye uurowday saa laba nin baan kale isdaysnayne u mushay oo islow bay dhashoo loona alalaasi. nin ilmale asaan arag dharaar aamin qabi waaye arbihii xawadii guuri jiray soo ilbiriqleeya iyadoo nin kale aabba yidhi arag iyo reerkii. fulay baa afraaree harkii ooda soo jebiye eebada iyo gaashaanka iyo qaata ulihiiyo inkir iyo dagaal iyo fidnay kale ebiyoodeen. eelkaa wixii dhigayna waa habar inkaaraadee la aroori oo niman maslaxo loola soo orodiyo araddii mid baa helay kubaa qaatay inankii. waxay tidhi adeeg baan u diray aada samadaasi oo qaansan roobaad allaan aqal ku weynayne ee iila soo orod ragow yaanan ku idlayn. lagu orodiye oda biiqa waa tala odoogeede wax la yidhi awowgow fidnuu dhigay ibliiskiiyo ka arrimay cirkana eegnay oo aadna tegi waaye. wuxuu yidhi u taga oo kufriga ehelka naareeda aanu yeelle meeshaan adaa noo amiiradahe aqbalaya ayeeyo la ima udub dhexaadkii. waxay tidhi odaa nool tashigan inan ma keeneene aan arkeeya ayaan keliya rara beelahoo idili afkow gelisay meel oo manaa xilin abaaraad. wuxuu oofta iga saara yidhi guubiskii ugube markay awrtii kala daalatuu daaqay omoskii iyo xiyoontaba haween waa indhee aaminkaa galay. aahii asqac loogu go'ay oo masooraha ah aan arooro eedow layidhi maalkii naga oonye waxay tidhi il baan mayrayaa 10 ayaamood. dabadeedna waa kii ajalay eheedo khayrkii aqli naaqus goof ooman baa loo afaafaday ashahaada goortay akayd ooyday habartii iyadii amuudaya waxaa jooga ehelkeeda giddigoodna naagii ibliis waa ilmaadeen.